الشيخ سائل كان كلو حولها هاي دور سنة كهر أيام قتي دول كوحنو قتي جناعسي يينا يجو كردان لعك متكدب أيام مقلي دول كين زكال جوله هنا كزك أيام ربا حد مركان مقلمان قبل لعبا مسسنة كيجا تجي كورن سهدين تنسكسوجو مركان دول كأنسي قادو حال مر أنزكدي بحيو الحمد لله marka ay kelmad su'aasha way soo hormartay ficlan inta hadda la weydiiyay waxaan su'aashi kelmadeedii hadalkayga ku jirin malaha saas darteed maadaama waqtigu yar yahay khayr Allah yasiyan uga faa'iideysano wixii cusub masalada su'aasha zakada iyo dhulka ama hantida kale markii xoolaha laga zakaynayo wixii aan lacag kaashay xoolo nool iyo beer ahayn hantidan kale ee maguurtada ama guri ha noqdo ama hantidan kale ee ayraada moodka ee noolka ahayn beerna ahayn lacagna aan ahayn guri ha noqdaan gaadiid ha noqdo dhul ha noqdo isku qaaciida weeye waxa aad leedahay hanti ah laba mid bay noqdaan midna zakaa lagu yeeshaa midna zakaa laguma yeesho wixii ganacsi aad u hayso isaga lafihiisa beeca ah wuxuu dooni ha noqdo dhul ha noqdo dhar ha noqdo raashin ha noqdo gaadhi ha noqdo iyo gaadiid guryo ha noqdo dad baa guryo dhisoo sii gada dad baa gawaari ka ganacsada dad baa dhar ka ganacsada dad baa dhul ka ganacsada dad baa kan ka ganacsada waxyaabaha badeecad ahaan loo hayo dhammaan zakaa laga rabaa inay goob golood dhul ay yahay iyo dhar dukaan in yaalla inuu yahay isku mid weey marba haddii uu beecshiro yahay badeecadu noocee wax saamayn ama laha badeecadu ma jawaan raashin oo yaalla ma bunta daro meel saaranba ma balood dhuloo meel ku yaalla ma baabuur taaganba isku wada mid weey waxaan su'aalo badan oo kala laga yaabaa inay yimaadaan inaan waqtiga kooban duuduub isu raaciyaan rabaa wax kasta oo badeecad ah oo aad u soo iibsatay inaad sii iibiso sidiina u haysaay sanadku markuu u dhammaado suuqa wuxuu waqtigaa ka joogaa lagu qiimeeyaa maaha kaad ku gadatay malaha kaad ku beecinayso waxaadan isa hoos u dhaafaynin qiimo aadan dhaafin baa jira dadka kuu yimaadana kala gorgoro badan qofna naftu kaa qaadi gorgorada qorna laba jeer hadalka daa isku celisaan uu kaa gadan qofka ugu dambeeya meesha aadan dhaafaynin baad ku qiimayn lacagaha kalada haysatana waad ku dari 2.5% baad saa kaga bixin hadduu dhul yahay hadduu gaari yahay waxyaabaha aan beeca loo haynin ee haysashada aad ugu talagashay eed iyaga inaad intifaacsata aad ku talagashay zaka ma laha markii dahabka gabdhaha laga reebo dhul baad gadatay inaad iska haysataad rabtaa inaad dhisataad rabtaa guri baad dhisatay oo degan tahay gawaari baad haysataa basas baad leedahay waad kiraysaa taksiyaad kiraysaa guryaad kiraysaa dabaqyaad hoteelaad kiraysaa warshad baa wax soo saar kuu soomaysa markab iyo doon iyo diyaarad baad ka ganacsataa ood kiraysaa waxaa kala duwan ninka gawaarida kireeyo ninka dealerka ah kala duwan ka dealerga ay bundada khaanada saaran ee dukaanka beecu la xugun yahay guryaha in la kireeyo iyo gawaarida in la kireeyo dhulka in la degaamo la iska haysto loogu talagalay lafahooda zaka laguma laha
hadday wax soo saaraan kuwii midho leh waxaa la mid yihiin dhulka beerta ah beertu waxa ka soo baxaa laga zakeeyaaye dhulka lafihiisa beertaa lagama zakeeyo hadaad beer weyn leedahay oo tabacdo waxa soo baxay baa zake geli karee dhulkiina qiimee lagu dhihi maayo waayo dhulkan beecuma yaalle intifaac buu yaallaa waxaa la mid ah guriga kirada dabaqa kirada doonta kirada diyaaradda kirada taksiga kirada tareelaha kirada baska kirada waxaasoo dhan waa la mid kan la degayo gaariga shakhsiyeed wadata zaka laguma laha wixii midho yeeshee soo saara waxa uu soo saaray baa sanadka aakhirkiisa lagu dari xoolahaad haysato hadday zaka gaadhaan marka la isku daro 2.5% baad ka bixin oo waxa fuqahadeennii hore rubcul cushriga u yaqaanaana labada qayboodun weeye hantida gacantaada ku jirteed soo gadateed milkiido wixii inaad sii gadood soo gadood sii gada u yaalla xataa hadduu kugu raago sanad walba waad qiimayn isbiya baatiska yaalla qaarkii intee san u yaalla bee dukaanka dharku soo qaar higis iyo ma yeesho haddii wixii markii la qiimeeyo waqti dheer ahay oo san lacagba ay joogin waxba zaka lagu lahaa maalba ma haddii waxba goynin dhinac baad isaga dhigi haddaad miskiin siisaya iyo meel iska yaalaaba sidaas uga zakeeya khayr allah idin siiyo billahi tawfiiq saa'ilkan kale sheekhu wuxuu leeyahay waxaan ahay qof caafimaad bartay waxaan ka shaqeeyaa isbitaal mararka qaar waxaan samaynaa caruurta ay dumarku iska soo ridayaan shaqadaasi shaqo bannaan ma tahay oo ma samayn karaa mas'aladan mas'ala haa iyo maya ma aha waxay ku xiran tahay xaaladda iyo sababta mar bay bannaan tahay marna ma bannaana inay bannaanaato inaynan bannaanaan waxay ku xidhan tahay sababta loo samaynayo laba tusaale sameeya marka mid bannaan iyo mid aan bannaanayn midda bannaan hooyaa uur qaaday nafteeday khatar ku tahay dhowr jeer baa ilmo lagu qalay dhaawacii u dambeeyaa ka qoyan uur bay qaaday ilmahan hadduu sii jiro nabarkii qalliinkii minkii wuu qarxayaa hooyadiina nafteedaa khatar gelaysa ama wayba xanuunsan tahay hooyadu ilmay qaaday dawaa u socota way xanuunsan tahay soomaalida waxay dhahay midho geed saaran ku gunti ku jira looma daadiyo hooyada nafteeda ilaalinteedaa mudan ilma hadda calool galay oo wuxuu noqon doona iyo noolaan doona aan war loo haynin hooyadan ilaalinteedaa ka mudan marka way bannaan tahay hooyadana waa iska soo xaaqi kartaa dhakhtarkuna waa ka soo xaaqi karaa mar hadday u bannaan tahay waa tusaale bannaan tusaalayaal badan baa jiri kara kaan bannaanayn si aan sax ahayn buu ilmo ku calool galay in wixii la qariyaa la rabaa iigu kaalmee baa lagu yidhi aniguna habeen dambe kasta waan qaraafi duurkaan wareegi markii waxoogay soo galana adigu kac ka soo sii dee waa xumaan iyo qarinteed nin qaaday iyo maxaa la yidhi kii qariyey iyadana waxaad qayb ka tahay tacaawun cala alithmi waalcudwaan dembi baad qayb ka tahay soo ridistaasi ma bannaana maa bayna dalika waxay ku xiran tahay sababta keenaysa ilmahan soo riditaankiisa marna waa bannaanaan kartaa marna xaaraan bay noqon kartaa sida qaalibka ah haddaan sabab hooyada caafimaadkeeda iyo khataray gelayso oo loo ridayo aan ahayn qaalibku inta kale ma bannaana dhakhaatiir ragga sheeganayana waxaan filayaa anugu waddankiina uganda garan maaye laakiin inta badan qawaa ma ogola wadamadu in waddankiina aan laga ogolayn diinna ogolayn dee meeshii kale la aadi ha la aadaane hadday xaaladaha bannaan aadan ku hubin waxba ha u kaalmayno ha ka qayb noqon billahi tawfiiq in sha allah labiyo saddex baan isu raacinaynaa saddexdan su-aalood waa qoyska sheekh waxay tihi gabadha nin baa i qabay
wuxuu ii dhahay waad furan tahay waad iga furan tahay muddo kadib wuxuu ii dhahay saddexdaadii waad qabtaa muddo kadib wuxuu ii dhahay waan ku furay muddo kadibna nin ayaan ismeher xadnay oon guursaday mana aanaan kulmin intaas kadib ninkii hore ayaa i soo doonay oo reerkayga soo doonay waana i guursaday isla jooganagaas saddexda naga dhammaatay kadib ninkaan isguursanay eenaan kulmin isla jooganaga ma xalaal baa midda kale waa su'aal kale su'aasha ku dhow saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh haddii gabadh iyadoon waxba la weydiinin waalidkeed uu guuriyo oo lala aqalgalo iyaduna ay ninka isu diido gabadha ma dembi bay galaysaa hadday gabadhu ninka isu diido markii guriga ay gasho iyadoo nikaaxu ku dhacay dembi ma galaysaa alxamdulilah su-aasha hore waxbaa daboolan oo inaan jawaabta ku kala qaado u baahan gabadhu waxay tidhi waan ku furay buu yidhi haddana saddexdaadii baad qabtaa buu yidhi haddana waan ku furay buu yidhi maxaa u dhexeeyey mayna sheegin gabadhu rajactu ma u dhexaysay mise uma dhexaynin waxaa kaloon caddayn haddaynan rajactu u dhexaynin labadan jeer ee dambe ee waan ku furay uu lahaa ma intay ciddada ku jirtay bay ahayd mise kadib iyadoo ciddo ka baxday bay ahayd waxaan saa u leeyahay waxyaabahaasi saamayn bay yeelan karaan xukunka meesha ka imanaya marka labaan kala qaado mid mise mid haddii ay intay ciddada ku jirtay wada ahaayeen wax rajactuana aanay u dhaxaynin waxaasoo dhan hal dalqad waay 2 iyo 3 dalqadood hal cidda isuguma yimaadaan hadduu ninku gabadha rabo 3 inuu dhameeyo ha yidhaahdaa waan ku furay war markhaati hada waan soo ceshaday haddana ha yidhaahdaa waan furay haddana ha yidhaahdaa waan soo ceshaday haddana ha yidhaahdaa waan furay 3 jeer buu xaasuu qabuu furay laakiin xaasuu furay haddana waan kaa daba furay sida saxdaa meel ma leh waxaana sugan nabiga calayi slam waqtigiisii 3 baan kugu furay hal baa laga soo qaadi jiray 3 laga dhigo waqtigii cumar aakhirka khilaafadiisii 2 sano kadib khilaafadiisii waxaan leeyahay 2 sano markay ka soo wareegtay oo khaliifaha kadib bay bilaabatay oo dadku ay affududaadeen saas darteed haddaanay ciddo u dhaxayn ciddada dhexdeeda hadday ahaayeen rajactuna aanay u dhaxaynin waa hal dalqada guurka dambana waa sax kan dhaxana waxba kama jiro kan suuqa madow ee dhexe qodbasirada wax macnaa ma laha waxba loogama baahnayn waayo gabadh hal dalqad lagu furay oo ciddad ka dhammaatay ninkeedii waa guursan karaa intii baaqigii iyo baalansigii buuna ku qabi labadii kaluu ku qabi haddaan wax kaloo ku horreey jirin hadday rajactu u dhaxaysay oo hal mar ahna tii koowaadna waa dalqad tii labaadna waa dalqad ta saddexaad haddaan rajactu u dhaxaynin la xisaabi maayo 2 dalqadood oo kasta oon rajactu u dhaxaynin tii horunbaa hal ah 2na ma noqoto 3na ma noqoto ragga iyaga shaaficiyada xakaan la idaa rag baa na qabsado oo yiraahda saas maaha culimo saatiri waxaan ku yiraahdaa inuu 2 mid yeela meesha waa 2 madhab wasraacayaan 3 iyo isma raacayaan annagu isma raacayaan baan banaanka la taagana saasaana diin ahaan nala saxan nagu soo raaco jid la yaqaana mara oo inaan ahayn way israacayaan ta ku adkaysta oo markii gadaal leedinka yimaada qiil deeyna oo taayadii hoosta uga soo dhuumanina hada markuu qiil deeyayo 3 isma raacaan buu ka qiil deeyaa diwaadiga aniga ilaa sax ma aha markii hoos lagu yimaado wax halka ugu soo dhuumani waxba dadka u nusnusaynin oo kiska saynina kollaba hoos baad uga qiil deeyaysaan oo kanaad ku dhaqmaysaan si bareer isaga sheego waxa tiraado war isma raacaan hal qaado ama meel ku adkaysto way israaceen oo qiil ma leh dhaa laakiin way israacaan aniga dheera dagaalan hadhow markaan ku imaado iraada sheekhu 3 iyo carruur iyo joogtay
may qowl kala jiro isma raacaan waan ku qiilday hada tiraad deeri waxaad ugu haysatay mise waxoogay kista gaar loo keenayaa saameyn leh qaalin bixiye maxay qaalin bixiye qiil ma waayo mise markii qaalin la keeno bankan ku soo dhaqaqanayo anagu qiil ma naqaan sidaas nala saxan ta mas'aladaas hadayna rajactu dhaxaynin ama ciidadoo gooday kadib ay ahaayeen labada jeer ee dambe waxba saameeyna ma laha hal dalqada weeye guurka qodba sirada aan damaba asixin isu tagna waxa loo baahan lahaa guura saxay oo la isu tagay markay saddexda dalqadood dhamaadaan kadib haday saddexdii dalqadood rajactu dhaxayso dhamaadeen kan guurkan ma jiro haduuba jiri lahaana haddaan gogol la isugu tagin guurkan dambe ninkii ku noqday waxba kama jiro hadday saddexdii dhamaadeen markii isaga garanaydo qofka xaaladiisa sida ay tahay uusan noo faahfaahin su'aasha labaad gabadha la meheriyay iyada oo diidan marka koobaad aabuhu uu khaldamay oo dambi buu galay taladii nabiga iyo amarku nabigu jaangooyayna wuu jabiyay marka labaad gabadhu hadday diido nikaaxa wuu jabayaa wuu burayaa inay diido marka saddexaad gabadhu inay diido dambi iyo caasi waalideen midna ma aha saddex arrimoodaan yar jalciyo soo fiirfiiriseero rag gabdha inay saa ku guursadaan iyo inay ku guuriyaan raba inay ku jiraan ka yaqaan nabiga caysa fi al-bukhari wa muslim waxa ka sugan laa tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan gabadha ugubka ama inanta aan guur soo marin lama nikaahin karo ilaa la weydiiyo iyada wa idnuha sukutuha ogolaanshaheedu waa inay aamusto laakiin waa in la weydiiyo hawshaas iyo saasa baan rabaaya raalli ma ka tahay isagoon dhihin hadduu sameeyo amarkii nabigu jabiyo qofkani marka labaad hadduu ku tallaabsado gabadha khiyaar leh nabiga ibn Abbas wuxuu wariyay fi inda Abi Daawud wa Ahmad wa ghayrihima an ibn Abbas radiyallahu anhuma nabiga sallallahu gabar baa u timid waxay tii rasuulka Ilaahay aabahay baa nin igu meheriyay anigoo diidan fa khayyaraha iyadu kala dooransiiyay wuxuu hadaa rabtaan oo talada arrinka aabaha aqbal hadaa rabtaan diido laad ku dhufo halka waxa ka garatay gabadhu iyada khiyaar leh sida xadiidka wuxuu ku tusay nabigu gabadh waalidkeed baa saa yeelay leh inuu dambi iyo caasul waalideyn fari lahaa mu malay hadduu yiri khiyaar baad leedahay gabadhu khiyaarka ay qaadatay ku dambaabi mayso amarka abaha lugta haday ku dhufato ma dambaabaysa way nabiga khiyaar si sallallahu alayhi wasallam hadayna dambaabayna macnaheedu caaqil waalideyn ma saadarteed waalidku arinta ku dhamaystiro waalidku ilmihiisa guur ma ku qasbi kara ma sa u diidi kara ha oo maya waalidku xaqqa waalidka kamid maaha inuu guur ku qasbo laa wiil wala gabadh haday diidaanna way u banaan tahay oo caaqil waalideyn maaha sifaan warka u dhageysta guurka ilaahay wuxuu ku tilmaamay waja'ala baynakum tadisraba meeluusan rabin qofka in qoorta loo geliyo gabadhana waa ka hadda maqlayseen gudahaanna guurku rabitaan buu ku yimaadaa guurka nicmada aayaadka ilaahay lagu darayna waa ka israbitaanka sadarteed wuxuusan rabin in lagu qasbo xaq looma laha taasi waa waalidku ma qasbi kara wiil iyo gabartoona kiisa uu talada waalidkii qaatay ilaahu ii barakee talada waalidka yiraahday waa baab mawdiidi karaha gabadha nin ay rabta waalidku waa diidi kara
wiilku gabadhu rabana waalidku waa diidi karaa qofkan isma qaadan karno waa la dhihi karaa wiilashuna ciiday ka badan yihiin mid ha ka dhex raadsata kale gabdhuhuna ciiday ka badan yihiin gabar kale ha ka raadsado kuwii la qabay baa fur la dhihi karaa xaaskaaga hooyada dhihi kartaa abuhuna dhihi karaa Umar waa kii Abdullah wiilkii fi gabadh fur yiri wuxuu gabadhu way ii roontaana waan jeclaa nabiga soo tageen afka qoryo laga ma galgaliyo moogtahay waa Umar Abdullah wuxuu gaaday sababtii inuu ogaado Umarna waa diiday nabiga lagu dacweeyay nabiga uu yeeray wuxuu jira asaasa wuxuu jira hadalka abaha maqal buu ku yiri haddii la afka la sii galgaliyo sababtii sheeg la dhaho bilaaba 100 ceebood gabadhii lagu sheego ka dartay haddii 100 ceebood gabadhii haluu sheego gabadhii ninkan nafur ku kala guursan lahaana ceebowday Soomaa iyadoo duuduwa baqaro abaha waalidka warkiisana maqal Abu Dardaana nin baa u yimid hooyadii baa tiri ama aniga ama naagtan wada joogeen ama aniga banaanka mari ama gabadhan dir wuxuu hooyada diidna ku dhihi maayo xaaskaaga furna ku dhihi maayo laakiin xadiisna ayuu ku sheegay waa jawaabtii oo dadban nabigu wuxuu yiri albaabada jannada waxa laga gala waxa ugu fiican hooyada hada albaabka ama hayslaasho wada ama iska tuur niga wuxuu kula taliye warka hooyadii riyadu kula taliye inuu furo kulaba talin laakiin warka hooyadii riyadu kula taliye صح warka hooyada furitaana sadarteed waalidku diidi kara laakiin ma gelin karo guri leeyahay kuma qasbi karo وسوشيال ميديا ها اي تصل مستنت بالله توفيق